wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada channelka Sooyaalka Wada oo alla uga bartay inaan isu gudbino wararka ugu hadalaya inta badan gudaha Soomaaliya iyo caalamka. Magaciigu waa Maslax Nasiib. Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka walaacsan doorashada 2021. Wasiirka Amniga Jubbaland oo ka baxsaday gacanta dawladda. Al-Sunna wal Jamiica oo soo dhistay baarlamaan cusub. dhanka wararka caalamka tiradii dadkii ku dhintay cabuuq oo sii kordhay taawadayaal ku soo dhawaaday warkii oo faahfaahsan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo khudbad ka jeediyay xaflad soo dhaweyn oo lagu sameeyay London ayaa ka hadlay xaaladda dalka isagoo xoog saaray doorashada 2021 Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ugu horeyn rajaxmo ka muujiyay in doorashada qof iyo cod ah ay ka dhici karto dalka wuxuuna sabab uga dhigay laba qodob oo kala ah amniga iyo diiwaangelinta codbixiyaasha midda amniga wuxuu tilmaamay inaysan jirin amni isku halayn karo isagoo su'aal ka keenay heerka ay gaarsiisan tahay nabadgelyada waddanka sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa intaasi ku daray in ilaa hadda aysan muuqan diiwaangelinta codbixiyaasha taasina ay tahay caqabad kale dhinaca kale madaxweynihii dowladda ku meelgaarka ah wuxuu soo hadal qaaday xaaladda siyaasadeed ee ka taagan dhismaha Galmudug isagoo ku baaqay in laga wada shaqeeyo midnimada maamulkaasi si loo dhiso maamul ay ka qanacsan yihiin dadka gobolada Galgaduud iyo Mudug ugu dambeyn waxa uu carab ku dhuftay in xisbiga himla qaran oo uu isagu hogaaminayo uusan wax door ah ku lahayn doorashada Galmudug xitaa uusan wadan musharax gaar ah balse waxa uu ballan qaaday inay la shaqeyn doonaan mas'uul kasta oo si xor iyo xalaal ugu guuleystay xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug inta meel lagu soo aruursho waa codayaan la yiraahdo ee dalkaadan 4 sano dambe lagu sii xukumo xageena geenaysa ogaada annaga 4 sano iyo 10 sano waa sugi karnaa mushkilad ugu ma hayso laakiin dalkan xaqo aadaya waa su'aasha taas waa doorasho xura Cabdirsiid Jannan oo ah wasiirka amniga Jubbaland ay booliska Soomaaliyeed sheegeen inuu ka baxsaday xabsiga taliye ku-xigeenka booliska Soomaaliyeed Sakiya Xuseen ayaa bartay Twitter ka soo dhigtay sida uu uga baxsaday maxbuuska iyadoo tiri wasiirka hore amniga Jubbaland Cabdirsiid Xasan Jannan ayaa saaka ka baxsaday kii uu ku xirnaa hay'adaha amniga ayaa ku raad jooga inay gacanta ku soo dhigaan eedeysanahaasi oo la haystay dambiyo kala duwan shacabkuna ay soo wargelin hadii ay arkaan 31 Luulyo 2019 ayay ahayd markii Cabdirsiid Jannan lagu xiray garoonka Aadan Cadde intaas wixii ka dambeeyay waxa hayay hay'adaha booliska Soomaaliyeed ilaa uu maanta baxsado wararka naga soo gaaray magaalada Dhuusamare ee caasimadda Galmudug ayaa sheegaya in ururka Al-Sunna ay magaaladaasi ku dhawaaqeen xildhibaan cusub oo Galmudug ay yeelan doonto xildhibaanada oo ay soo xuleen hoggaanka sare ee Al-Sunna ayaa tirahan gaaray 69 xildhibaan iyagoo isla maanta doortay gudoomiye ku meel gaar ah si hagi doono baarlamaankooda ururka Al-Sunna waxay sheegeen in 69 xildhibaan oo lagu daray 20kii oo hore u gudbiyeen guddiga maamul dhisidda Galmudug ay noqon doonaan xildhibaanada cusub ee soo dooran doona madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi wararka aan ka helin magaalada Dhuusamare ayaa waxay sheegayaan in xildhibaanada 20kii ee matalayay ururka Al-Sunna ay diideen inay ka qayb galaan fadhiga ay maanta yeelanayeen xildhibaanada cusub ee soo xulinayeen hoggaanka sare ee Al-Sunna dhinaca kale lama oga sidii uu xalka noqon doono balse guddiga doorashada ee baarlamaanka labaad ee Galmudug oo muddo 24 saac ku daray diiwaangelinta musharaxiinta ayaa sheegay in markaan ay tahay muddo korintii ugu dambeysay daawadayaal haatan ku soo dhawaada dhinaca wararka dibadda waxaa sii kordhay tiradii dadka u dhintay cabuuqa corona ee ka dilaacay magaalada Wuhan sida ay sheegayaan mas'uuliyiinta dowladda Shiinaha waxaa la xaqiijiyay in dad gaaraya 106 qof ay u dhinteen cudurkan halka dad ka badan 4,000 oo kalena oo haleelay xanuunkan oo isbitaalada la jiifaan waxaa sidoo kale sare u kacay dadka ku nool wadamada kale ee caalamka ee uu haleelay cabuuqan waxaa kiiskaas cusub lagu soo warinayaa dalalka Singapore iyo Jarmalka daawadayaal intaasna waxaa nooga wararkeena fadlan haddaan ugu cusub tahay subscribe noo saar waa anigoo ah Maslax Nasiib intaan warkan warka xigeen kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo